السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جانالka marka la soo dhawaado aad iyo aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago weerarkii lagu qaaday xalay oo nin madow ah uu ku qaaday hotel ku yaala magaalada Washington oo aan ka fogeyn aqalka cad. Halkaasi oo ay ka socotay xaflad ballaara oo madaxweyne Trump iyo inta badan mas'uuliyiinta dawladda ay joogeen. baaritaanadii ugu horreeyay ee hordhaca ah maxaa ka soo baxaya ninkan oo la ogaaday in uu hotelka deganaa isla markaana sidoo kalena hub fara badanna uu haystay sidee ku suura gashay hotel aan ka fogeyn aqalka cad oo xitaa aan loo ogolayn inta badan dadka shacabku inay degaan in ninkan hub intaasi la eg uu la soo galo isla markaana waxaa hadda la ogaanayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqiisii ugu dambeeyay gurigiisii oo ku yaala California ayaa la ciidamadu ay u daateen xalay baaritaan ayaa lagu sameeyay telefonadiisii kombiyuutaradiisii iyo waliba barihiisii bulshadana waa la baaraya maxay yihiin dambiyada lagu soo oogay iyadoo la filayo inuu berri maxkamad ka soo hor muuqdo sidee xalay meesha wax uga dhaceen kala cararkii meesha ka dhacayna sidoo kale waan idinla wadaagaya marka warbixino iyo faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya arrimahaasi dhammaantoodna waxaan rabaa inaan idinla wadaago balse marka hore soo dhawaada xalay waxaan ognahay xaflad ballaaran oo sanadkiiba mar la qabto oo la yiraahdo White House Correspondents Association Dinner oo ka dhacaysay hotelka Washington Hilton oo aan ka fogeyn aqalka cad ee Mareykanka madaxweyne Trump uu ka qayb galayay xaaskiisa madaxweyne ku-xigeenka inta badan golaha wasiirada xubno ka tirsan Congress-ka oo afayeenka aqalka wakiilada uu ka mid ahaa Mark Johnson iyo marti sharaf kumanaan gaaraysa ayaa markii ay bilowga maraysay waxaa la maqlay rasaastaasi oo sababtay in madaxweynaha miiskii uu fadhiyay hoostiisa la geliyo kadibna markii uu daqiiqado yar ku jiray kadibna meel ammaan ah loola cararo sidan ayay wax ahaayeen markii rasaasta la maqlay muuqaalkan aad ka arkaysaan dadka iyagoo sawirro galaya ayaa dhawaqa rasaasta la maqlaya kadibna kala carar ayaa dhacaya xitaa waxa aad arkaysaan madaxweyne ku-xigeenka oo kursigiisa isagoo ku fadhiya xoog loo soo dafayo dadka qaar xaasaskooda ayaa la socda waxaad arkaysaan xitaa iyagoo garguuranaya qaar ayaa kabala'aan cararay kuwa miiska hoostooda ayay galeen kuraastii ay ku fadhiyeen miiskii la filayay inay ku casheeyaan hoostiisa ayay dadku galeen isla markaana cabsi iyo qalqal weyn ayaa goobta ka muuqday ninkan oo magaciisa lagu sheegay Cole Thomas Allen oo Torrance California ka soo jeeda 31 jir ah ayaa waxa uu xoog aad arkaysaan muuqaalkan kooban oo ay mas'uuliyiinta ammaanku ay soo bandhigeen in albaabka xoog uu ku soo galayo ciidamadii ilaalinaya xitaa ay arrinta lama filaan ku noqonayso isagoo waliba rasaas ridaya ninkan waxa uu ku dhuftay askari ka tirsan ciidamada Secret Service-ka ee madaxweynaha ilaaliya askariga waxa uu watay jaakada xabadda celisa ee bulletproof-ka isbitaal ayaa loo qaaday laakiin wax weyn ma aysan gaarin hadda isbitaalkiina waa laga soo saaray markii dambe ciidamadu ninkan waa ay qabteen sida sawirkan aad ka aragtaan xabadka ayaa dhulka loo dhigay jeebana waa la jeebiyay xitaa waxa la leeyahay markii la xirayay jilib ayay wax ka gaareen inkastoo uu ka soo bogsanayo haddaba isla markiiba waxaa bilowday marka baaritaan la xiriira ninkan iyo sidoo kale halka uu ka yimid iyo baaritaano kala duwan haddaba baaritaanadii hordhac ahaa ee ilaa iyo hadda soo baxay ayaa waxa ay muujinayaan ninkan horta ilaa iyo 2 qori iyo rasaas iyo midiyo fara badan ayuu watay xeeralyaha magaalada Washington DC Janine Pirro waxay sheegtay ninkan inuu doonayay in dhibaato aad u fara badan uu geysto oo damaciisu uu sidaasi ahaa dambiyada lagu soo oogay waxa ay yihiin 2 dambi ayaa ilaa iyo hadda lagu soo oogay labadaasi dambi waxa ay yihiin ninkan in uu watay qori isla markaana uu doonayay in uu dambi aad u fara badan uu ku geysto iyo sidoo kalena in uu qori wax dilo uu ku weeraray askari ka tirsan ciidamada Secret Service-ka dacwado kalena waa laga yaabaa in lagu soo oogo maalinta berri ah oo Isniina ayaana ninkan maxkamad la soo taagaya sidoo kalena waxa jirta in ninkan baaritaanadii ugu horreeyay hadda lagu sameeyay ee soo baxaya isla xalaba guriga uu ka deganaa magaalada Torrance ee gobolka California ciidamo aad u fara badan oo gawaarida gaashaaman ku qalabaysan ayaa u daatay isla markaana baaritaan ayaa lagu sameeyay ninkan ilaa hadda waxa la leeyahay baaritaanada la ogaaday hotelka waxa uu qol ka gireystay horaantii bishan April oo aynu ku jirno shalay gelinkii hore oo Sabti ahayd ayuuna hotelka soo degay xalay ayayna xafladu ay ka dhacaysay marka
sababta markaa ninkan hoteelkan oo aan ka fogeyn aqalka cad isla markaana aanba loo ogoleynba inta badan madaxda dowladda ma ogiye in aysan dad kale soo gelin sababta uu ninkan u soo degay isla markaana sidoo kalena uu hubkan ula soo galay ayaa waxa ay tahay arrinta la yaab kale oo hadda baaritaanka lagu hayo sidoo kale ciidamada baaritaanka ku sameynaya ninkan waxa ay sheegeen in uusan la hadlaynin su'aalaha la weydiinayana uusan ka jawaabaynin laakiin warar ayaa waxay sheegayaan ninkan inuu doonayay inuu bartilmaameedsado mas-uuliyiinta maamulka madaxweyne Trump laakiin si cayiman qof ma uusan u sheegin laakiin mas-uuliyiinta ayuu bartilmaameedsanayay waxaana sidoo kale jirta in ninkan uu ka soo safray magaalada Los Angeles markii uu caasimadda Washington DC tagayay magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayuu soo maray kadibna caasimadda Washington DC ayuu tagay hoteelka ayuuna degay shalay gelinkii hore oo sabti ahayd waxa FBI-du ay xaqiijiyeen hadda in ay doonayaan in mobilkiisa iyo kombiyuutaradiisa ay baaritaan ku sameeyaan isla markaana la ogaado in baraha bulshada uu wax soo dhigayay iyo in kale iyo haddii cadeymo dheeraad ah laga heli karo ninkan waa macallin isla markaana waxa uu ka qalin jabiyay mechanical engineeringka ayuu ka qalin jabiyay jaamacadda California waxauna u shaqeeyaa as a tutor ahaan waliba macallinka ugu fiican bishii la soo dhaafay ayaa loo doortay ayaa la leeyahay ninkan waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda California Tech oo sanadkii 2017 uu ka qalin jabiyay sidoo kalena California State University of Dominguez Hills iyo sanadkii 2025 sidoo kale uu ka qalin jabiyay marka waxa la leeyahay xitaa gobolka California ninkan uu ka soo jeedo waa gobol dimuqraadi ah ololihii Kamala Harris lacag $25 ah ayuu ugu deeqay marka sida muuqata dimuqraadi ahaan ayuu u diiwaan gashanaa waa qof dimuqraadi ah ninkan waa madow ilaa iyo hadda baaritaanada lagu sameeyana sidaasi ayay muujinayaan marka waxaa jirta xafladda waxaa xiriirinayay nin mentalist ah oo dadka maskaxdooda waxa ku jira qiyaasa isla markaana xilliga ay wax dhacayeen waxa uu dhinac taagnaa ama gadaal uu ka taagnaa madaxweyne Trump iyo xaaskiisa dhexdooda ayuu ku jiray Melania isla markaana trickskiisa ama khiyaanooyinkiisa ayuu halkaasi ku sharaxayay marka waxa uu yiri markii ay wax dhaceen markii hore uma maleynaynin inay rasaas tahay waxa uu saaka la hadlay telefishinka CNN-ka gaar ahaan barnaamijka la yiraahdo State of the Union oo Dana Bash ay daadihiso maalin kasta oo axada marka waxa uu ka warramayaa sidii ay wax u dhaceen isagoo sheegay in uu markaasi ku guda jiray howshiisa in xirfadiisa uu soo bandhigo waxa uu yiri markii ay wax dhaceen rasaas uma maleynaynin waxaan u maleynaynay alaab iyo wax maadaama xilligii casha qaybinta lagu guda jiray xaflad casha oo aad u balaaran ayay ahayd markaas kadib waxa uu yiri waxaan arkay ciidamada Secret Service-ka oo madaxweynaha ku soo cararay miiskii ay fadhiyeen madaxweynaha hoostiisa ayaa nala geliyay aniga iyo madaxweynaha indhaheena ayaa isqabtay ilaa iyo 2 sekan ayuu yiri wajigiisana cabsi iyo qalqal ayaa ka muuqatay markii dambe waxa uu yiri waa nala cararay xitaa mararka qaar waan burburanayna ayuu yiri maxaa yeelay ma aanan ogeyn waxa dhacayo waxa ay yihiin marka waa kan bal isagoo ka warbixinaya waxyaabihii uu dareemay xalay isagoo waliba qofka ugu dhow madaxweynaha ahaa marka ay wax dhacayeen maxaa yeelay madaxweynaha iyo xaaskiisa Melania dhaxdooda ayuu taagan yahay sida muuqaalka aad ka arki doontaanba isla markaana qofkan maadaama uu yahay mentalist oo dadka maskaxdooda waxa ku jira uu qiyaaso waxa uu halkaasi ku soo bandhigayay xirfadiisa wax qiyaasida amaba predictionka bal waa kan Oz Perelman oo Dana Bash uga warbixinayay waxa uu dareemay xalay markii ay xafladda wax ka dhaceen wixii faahfaahinaha oo dheeraad ah oo ka soo kordhay ninkan iyo sidoo kalena baaritaanka lagu wado waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan marka la kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo